واحدة qaxootiga u qaabilsan dowladda Jarmalka ee BAMF ayaa hadda soo saartay tirakoobkii u dambeeyay ee sanadkii la soo dhaafay 2024 waxaynu dul istaagi doonaa Soomaalida dalkan Jarmalka soo gashay sanadkii 2024 aynu hadda ka soo gudubnay wadartay hadda soo saartay dowladda Jarmalka gaar ahaan waaxda u qaabilsan qaxootiga BAMF waxay ku sheegeen sanadkii la soo dhaafay 2014 guud ahaan dalka Jarmalka waxa iska dhiibay 7354 qof oo Soomaali ah waa dadka isku diiwaan galiyay magaca Soomaaliya 6953 qofood waxay tahay markoodii ugu horeeyay ay wadankan yimaadeen oo farahoodii ugu horeeyaba Jarmalka ay dhigteen 401 qofna waxay ahaayeen dad fara kala duwan lahaa ama dalal kale oo Yurub soo maray ama mar Jarmalka joogo ka tagay oo dib ugu soo noqday waa 401 qofood dadka loo soo jawaabay hadaba 5181 qof ayaa loo soo jawaabay oo jawaab la siiyay sanadka la soo dhaafay 2024 801 qof waxaa la siiyay sharciga buluuga ah ee 3 sano ee refujiga ah waana sharciga ugu wanaagsan ee dalka Jarmalka uu bixiyo 184 qofoodna waxaa loo aqoonsaday inay yihiin dad magangeliyo doon rasmi ah oo waxaa lagu qancay kiisaskii ay la tageen BAMF-ka waxaana loo aqoonsaday inay yihiin qaxooti rasmi ah 308 qofood waxaa la siiyay sharciga bini'aadanimada waa meelaha qaarkoodna 1 sano waaye meelaha qaar 2 sano waaye inkastoo hadda la dheereeyay qaybta extensionka oo 3 sano laga dhigay dhicitaankiisa waa sharciga bini'aadanimada 308 qofood la siiyay sharciga abshibu forbotin kala yiraahdo ee ah mamnuuc tarxiilkana waxaa la siiyay 1095 qofood waa sharciga halka sano ee abshibu forbotin kala yiraahdo hadaba jaaniska Soomaalida hadda waxa uu marayaa 61.8 boqolkiiba 362 qofoodna diidma ayaa la siiyay waxaan u rajaynaynaa waqti qurux badan iyo in ilaahay sharciyo kale uu siiyo hadaba 1615 qofoodna waxa ay dowladda Jarmalku sheegtay in qaabab kale loogu jawaabay ama waxay noqon kartaa in qaarkood Dublin ay ahaayeen oo si Dublin loola macaamilay oo dib loo celiyay iyo kuwa kale laakiin hadda jaaniska qofka Soomaaliga ah ee Jarmalka uu sharci kaga heli karo waa 61.8 boqolkiiba waxay ka dhigan tahay boqolkii qofood ee Soomaaliya 61 qofood ama ku dhawaad 62 qofood ayaa uu sharci siinaya tirakoobkan waa kii ugu dambeeyay maanta ayuuna si rasmi ah u soo baxay oo dowladda Jarmalka ayaa soo daabacay